هذا المقدشة ما عرفت مطنا حساب مطنا ضد حساب والله قدر الله ضيف اي تابع هذا دايوا هذا يتابع هذا دايوا يتابعني شغلها خبصو اوكي ترى شقدي ساقولنا تاي عروة كساعة عروة كساعة أنا ما حلا يمكن جرى واحد متدنق عنكم قال مالك جيري kulantii wanaagsan dhammaan daawadayaasheena ku nool daafaha caalamka mar kale iyo sanad wanaagsan muuqaalka loo xiiso leh barta aad naga daawanaysaan waa janaalkiina dareenka nolosha TV kaas oo aad ka daalactaan waxyaabaha xasaasiga ah ee daawadu ka taagan baraha bulshada kuwaasi aan isleenahay armaan muhiimta in la bidhaami daawadayaasheena ama loo iftiimiyo mar walba in waxaan heegan iyo heelan u jirnaa sidii daawadow adigaan kaaga dhigi lahayn qof maqsuud ah kugu soo gudbi lahayn wixii aadan ogeyn wixii aad ogtaan aan ku xaqiijin lahayn marunbaa miswaabeen taasi aan rol model ugu nahay youtuberad kaleeto ugana duwanahay mar walba haddaba daawadahana sharafta labaad yeetaa markii ugu horeysa aad janaalkana soo booqato kuma janaalka walaalo subscribe saaro furana gambalaalka si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee hela muuqaalada bartaan soo gelino sidoo kale daawada waxaan si naxariis leh kaaga codsanaynaa inaad muuqaalka noo like garayso waayo like-tu waxay noo taa dhiirigelin haddaba daawadahana sharafta labaad sidaad ka soo aragtay thumbnailka ama aad ka soo akhrisay titlekaba waxaa jirtay sida aan wada ogsoonnahay in barnaamijkii weynaa ee qaraaxa uu comeback weyn sameeyey codsigii bulshada ay codsanayeen in barnaamijka la soo celiyana ay Astaan TV ay jiibtay taasoo ramadaankii ka hor bilihii Rajab iyo Shacbaan dadku ay fariimo u dirayeen warbaahinta Astaan ama TV-ga qaybta cable-ka ama qaybta YouTube iyo Facebook page-ka intaba sidaa daraaddeed waxay aqbashay codsiyadii uga imaanayay bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan waddanka Soomaaliya iyo dalka dibaddiisaba waase oo marba ay jeclaa ama u sarkacay ama u sacbatumayay barnaamijka weyn ee qaraaxo kaasi oo soo bilowday ramadaankii hore haddaba daawadahana sharafta law yaan hadalka ugu daalinin ugu dambeyn waxaa dhacday in barnaamijkii qaraaxo la soo celiyo misna wejiga hore weji ka duwan lagu soo celiyo sidaa daraaddeed barnaamijkan wuxuu barnaamijkii ramadaanka hore kaga duwan yahay maadaama ramadaankii hore fanaaniin keliya barnaamijka lagu casuumayey sidoo kaleetana barnaamijka lagu duubayay qaybta stuudiyaha ee muusiga madadaalo ayaa daawada midkan wuxuu kaga duwan yahay sidaad soo aragteen qabihi horeba in fanaaniinta ama shakhsiyaadka caanka ah ee macallimiinta tababarayaasha iyo gabdhaha modeliska ama kuwa make upka ay barnaamijkan uga qayb qaadanayaan in branki lagu sameynayo gaariga dhexdiisa taasoo ah arrin aysan filaynin misna niyaddooda ku cusub oo ah xitaa aysan ku fikri karin marka gaariga wax walba lagu sameeyo xitaa ay dhacdo in branki lagu sameynayo waayo branki marka la sameynayo dadku Soomaalidu waxay ku duubaan camera sidaa daraaddeed kameradu waa ay weyn tahay oo haddii gaarigii camera HD ama 5D la soo saaro dabcan way muuqanaysaa khubarada ay warbaahinta Astaan waxay kaamirooyin aad u yaryar ka dalbeen imaaraadka carabta ama sida u taqaanaan Dubai sida daraaddeedna gaariga qaybta hore ee kabarka lagu xirayo qaybta gadaal ee kursiga gadaal lagu xirayo xitaa qofkii hadduu kaamirada yaraad u arko wuxuu isleeyahay waxaan kaamera maan u isleeyahay waa carfisadii ama barfuunkii ama deodorantigii gaariga loo isticmaalay ayuu isleeyahay sida daraaddeed waxaa dhacday in si qurux badan uu u bilaawdo barnaamijkani laguna bilaabay macalinka xulka galmudug Axmed Tahliil kaas oo wacdarihii oga ay ka qabsatay asiga Xasan Yufle iyo daroolka gaariga Cazaam sidoo kale daawada barnaamijkan waxaa xusud mudneed inay ka qayb qaateen Xamdi Bilan Qadir Keyow iyo fanaaniin kale oo talent leh haddaba daawadahana sharafta leh waan u soo laabano muhiimadda barnaamijkan maanta faaqideyno ugu dambeyn waxaa dhacday in barnaamijkii qaraaxo lagu casuubo qof aadan filaynin ma waxaad filaysay Muwado TikTok ama Muwado yarey oo ka mid ah dadka ugu da'da yar baraha bulshada sida YouTube-ka iyo TikTok ayaa lagu casuumi doonaa barnaamijka qaraaxo ugu dambeyn daawada way dhacday barnaamijkan way qayb qaadatay waxaana ka mid tahay dadka ku soo bandhigi doona waxyaabaha shactarada leh runaantii waxa dad badan waxay isleeyihiin maadaama Muwado yarey ay tahay qof iska qalbi caruura gabar iska da'yar talow miyay u dulqaadan doontaa hadallada xanafta leh ama kulkulul ee Xasan Yufle oo mar walba ay ku yiraahdo qof walba barnaamijkan lagu casuumo sidoo kale tana uu garab socdo Cazaam oo ah qofka dabka horinaya talow gabadhaas da'da yar miyay u dulqaadan doontaa taasi ayay isweydiinayaan dadweynaha
balse daawada kulley waan wada sugaynaa barnaamijkan oo caawa 7 fiidnimo la soo geli doono barta YouTube-ka Astaan TV sidoo kaleeto barta Facebook page-ka Astaan oo aad ka heli kartaan barnaamijyada xiisaha leh ee Astaan TV sidoo kaleeto hadii uu guriga kugu jira hoygaaga ku yaalo kaybalka ama anteenada Astaan aad ka daawado sidaa daraadeed Muwado TikTok ayaa ugu horreyn waxaa laga doonay hoyga ay ka degan tahay caasimadda magaalada Muqdisho degmada Kaaraan qaasatan xaafadda Wajeer ayaa tiimka Xasan Yufle iyo Cazaam iyo gaarigooda ay baakinteen hoyga ay ku nooshahay inantani lagu magacaabo Muwado kadibna ay ka soo kaxeeyeen ayna bilaabeen inay horfaayin ama foodadii ay dadkii hore ku sameeyeen mid ka daran ay ku sameeyaan oo ma aysan aaba yeelin ma aysan saaran gabadhani waa caruur isma aysan dhin gabadhani waa waxa laga yaabaa in qalbi ka dhaawacanto sidii iyo si ka daran ay ugu sameeyeen taas oo barnaamijku runtii saameyn aad u weyn ku yeeli doonta lagana yaabo dadka qaarkiin ka xumaa doonaan sida loola hadli doono inantaasi daad yar maadaama aan laga qafiifinayn hadallada qaar oo lagu durayo inantaasi aad ku daad yar sida daraadeed daawada mar walba waxaan uga qayb qaadanaa barnaamijkani marka la soo dhigo qaybta website-ka oo aan si hordhac borsmidaanin ku soo gudbino waxyaabaha ka dhacaya barnaamijkani maadaama dadka qaarkii aysan daawan kareynin maadaama birdid payment ama lagu daawanayo lacag lagu daawanayo halka muuqaal $20 US lagu daawanayo ayaa sida daraadeed daawad waxaan jeclaysanay inaan si hordhac borsmidaan ku sameeyno si barnaamijkii xiisi xamaasad ku yeesho haddaba daawadahan sharafta leh Muwado yaray oo barta social media ku soo biirtay horaantii sanadii 2019 iyadoo ku soo bartiimadeeda ayna ka mid tahay dadka baraha bulshada ugu da'yar adii aysan ahayn bayada koob iyo laba ka mid tahay dadka ugu da'yar waliba soo baxeen mooha iyo muna oo iyada aad ugu da'yar balse way ka saameyn badan tahay oo YouTube-ka wuxuu ka ruus ilaafaya 200,000 subscribe mar dhowna ay u dabaaldegayaan 300k sidoo kale tan barta TikTok ay wax ka sameeyeen magac aad u sareeya haddaba daawadahana sharafta leh waxba yaan hadalku ugu daalin waa idiin 7 fiidnimo ee caawa ee Astaan TV barnaamijkan uu ka xiiso badan yahay barnaamijyada horeeto sida daraadeed waxaan sugi doonaa comment-yada ka bixi doonaan dadweynaha muuqaalkaas miyuu mutaysan doonaa like fara badan miyuu mutaysan doonaa dislike fara badan maadaama gabadhani oo aad u da'yar aan ereyada qaar ama hadallada qaar aan loo qafiifinaynin haddaba daawadahana sharafta leh muuqaalkaas aan jeclaysan inaan la wadaagno oo borsimidada ah sida daraadeed daawada hadii taa markii horeys aad channelkana soo booqato kuma channelka la subscribe saaro furanaga baleelka si aad u noqoto daawada ugu horeeya hela muuqaalada bartaan soo galino daawadahana sharafta leh mar walba waxaan heegad iyo helo ugu jeerna sidii daawadan ka ilaa qof maqsuud ah kuugu soo gudbila wixii aad ogeen wixii aad ogtaana ku xaqiijinay marba maswaabeen qaybta farsamada waxa gacanta ku haya Cabdirasaaq Sky gacanta la u barakeeyo oo aan leenahay aad baad maasan tahay inta ku kulma doona muuqaalka mid xiiso badan daawadahana sharafta leh waxaan ku rajeynayaa waqti qurux badan iyo caafimaad Ramadaan Kariim